ويا صاحب يلا soo dhawaada bahda xirfadley maanta waxaan rabaa saaxiib inaan idin sheego website-keen update baan ku sameynay runtii magacana waa bedelanay galbash dadka ka soo guurnay marka saa u jeedaan saaxiib yaal website aad u qurux badan magaca sababta u guuran saaxiib waxa weeye runtii iskuulkii uu weynaaday macallin badan baa ku soo biiray arday badan baa ku soo biirtay shaqaale waa bateen xafiisyada waa bateen soo marka mashruuc inaan mustaqbal ahaan baa u fiirinay magacana oo la baxna xirfadley oo ah dad raba inay xirfado bartaan nooc kasta ha noqoto marka waa kana mataqaan hal ku dhigeena iska wax u baro iska u shaqeyso taa ogti masaaxib alqiimanis ma horta ku jirnaa ayadana hal laga faa'iideysto waa wanqalka magaceena weeye soo marka waxa inaan dul maro koorsooyinka iskuulka iyo dhowr su'aalood marba la soo wadi inaan ka jawaabno saaxib yaal ee koorsooyinka iskuulka aad u bilaaran yahay haddaad page-kan gasho courses oo ku soo baxayaan aad u tiro badan yihiin marka category-gana waa hanaa tusaale kale haddii aad ku dhufatid mataqaan haddii aad home page kala tagtid categories badan baa yeelana marka maadaama koorsooyinka sii badanayaan category harti baad dooranaysaa tusaale kale category ugu horeeya waa crypto and blockchain baa ku dhufanaysaa dhammaanba koorsooyinka la xiriira cryptaha baa ku soo bixi doona kuwa hadda ku jira iyo kuwa lagu soo diri doona marka hadda laba koors oo ku jira crypto ku saabsan mid koowaad waa investment crypto iyo basic ilaa mataqaana dhammaan dhanka investmentiga tanna waa basic ilaa dhammaan dhanka trade-ka marka trade-na waa tan investment-na waa tan soo marka labadaas baa ka haynaa marka loo yaqaano cryptaha forecast ayadana koorsan ka haynaa low and order lagu barto runtii aad waxa waayadana ardada u gataan waa tan ayadana ogaada qiimeyntiisa ku jirna 15% koorsooyinkan iskuulka dhan magacaas aan bedelan dalad finance accounting hadii arab saxbiya ayadana waa ku dhammaan softwareska lagu barto finance accounting adoo kale waa kala business accounting waa tan ayadana company study Microsoft Excel for data and business analytics waa tan kuubogeedina waa kuana soo marka ayadana waa haynaa IT networking hadii aad inaan bartaab ayagan dhowr koorsan ka haynaa waa soo siyaadinaa inta ka dhimana waxa ugu horeeya koorsada barashada computerka iyo buugaagtii office box-ki waa tan oo marka qofka online bilaabay ay tahay muhiim horta computerka inuu fahansan yahay buugaagta aan ka dhisnay basic-ga siskana waa tan ayadana hacking iyo cyber security ayadana waa haynaa design iyo creativity ga saaxiibana asna course waa ka haynaa marka insha Allah si play around oo sidka booqo adiga barbar Canva haynaa Photoshop haynaa Adobe sidoo kale Adobe Illustrator haynaa ayadana waa design-ka video editing saaxiibana asna waa ku haynaa dhowr course ka haynaa iyo sidoo kale saaxiibana dhowr software oo kala duwan waa kana kan koobaad videography sida kamarada loo isticmaalo settingkeeda gudaheeda waa tan korsan qaada photo editing waa tan Adobe Lightroom waa software ugu caansan photoyinka lagu adab gareeyo video editing waa tan waa Premiere Pro iyo CapCut baa ka haynaa laba software caan ah oo lagu edit gareeyo marketing iyo advertising hadii aad ama digital marketing ana bartin ayagana ku haynaa affiliate marketing baa ku haynaa saaxiibayaal oo dhameystiran xataa web design ku baranaysid landing page qaabka loo sameeyo ku baranaysid Facebook iyo Instagram sida wax lagu xaysiiyo digital marketing ku barata tan waa e-commerce-ga sida mataqaana business oo bilaab lahayd iyo mataqaana marketing ku jirta language and communication saaxiibayaal hal koorsa hadda noogu jirto waa English to English waa macalinkan Alex oo iskuul ka tirsan complete English grammar way waa tennisyadii iyo grammarka laga dhisaya marka ayadana artificial intelligence ama AI automation asna saaxiibayaal dhowr koorsa ka haynaa asna muhiim ay tahay inaad baratid koorsada kale saaxiibayaal ku baranaysaa full AI course baa lahaa waa ChatGPT Gemini Midjourney Canva Firefly iyo kuwa kale badan way wax ka sameynta muuqaaladan social media ku jiro oo dadka af Soomaali ku halay daatina baratid way ku jirtaa website AI lagu sameeyay way ku jirtaa Photoshop ama graphic design way ku jirtaa script way ku jirtaa mataqaana wax loo yaqaan prompt engineering muhiim ah oo xogta marka hore aad siin lahayd AI saaxiibayaal waxa la siiyaa xog prompt engineering baa lahaa input-ka aad gelisid bay ku xiran tahay results ama output-ka soo marka waa inaad taqaanaa prompt engineering iyo si sax ah AI-ga xog aad gelin si uu wax deep research ku siiyo xog fiican ku siiyo tan saaxiibayaal waa content creation-ka qaabka u noqon lahayd caan baan ugu yeeraa ama sida content-ga uga faa'iideysan lahayd hal abuurkaaga usoo gudbin lahayd software-radii baa ku jira editing-ka kameradii baa ku jira script-ga qaabka u diyaarsan lahayd waliba AI baa ku base gareynaa by the way maadaama AI uu kacsan yahay marka koorso kasta waxaan isku daynaa hadda in AI saaxiib ku base gareeyo soo kale saaxiib development iyo programming baa ku jira oo ilaa 10 koorso oo ku saabsan coding-ka mataqaana lama soo koobi karo ayada waxa weeye fundamental plugin Python ku jiro Merlin stack ku jirto MongoDB Node ku jirto Ultimate React.js ku jirto Java Tailwind GitHub HTML mataqaana aad bisa u tabiin business iyo entrepreneurship kana saaxiib alwaahina entrepreneurship ka course wax kahayna soo jeedidba waa sida mataqaana CV loo diyaarsado interview online loo xareysto waliba mataqaana Fiverr iyo meelahaas kale ayaa mashaqooyinka online qaabka loo apply gareeyo
تنا waxaa ku baran doontaa saaxiibayaal office administration dadka raba inay secretarial noqdaan secretary diyaar dropshipping waa tan ayadana Alibaba saa ugu dalbanayd alaabtana e-commerce qaabka business oo aan bilaabnayn ana macalinka taasina soo jeedaan waa tan keetay ugu dambeysay waxa waa web design way tan coding ma waa no coding macnaha WordPress elementary iyo mataqaan page builder adiga hadii WordPress ka weeye baa ayadana ku jira saaxiibayaal dhowr course waxa ku jira ku saabsan markii saaxiibayaal runtii iskuulka aad u bilaaran yahay course badan way ku jiraan fadlan booqo qiimo dhibista ka faysa hadii aad ina waxa weeye la soo xiriirtid saaxiibayaal contactiga ku dhufanaysa customer ku dhufatin halkan laga soo ama numberkan kala xiriir sana cusub baa la galaya saaxiibayaal qiimo dhibista laga faa'iideysto team xirfadley xafiisadayna Europe aniga aan joogo Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya teamkana joogan ayagana WhatsApp kana ka heli kartaa guys emailkii waa bedelna mid kale saaxiibayaal emailkana la baxnay info@xirfadley.com team xirfadley baa hadda ka dibnahay waana sanad cusub aad ba saaxiibayaal salaamaya ciao ciao